بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسلسلة دي مانديق كوربا كحرا صوماليا أردن أيانا إسكالي أنيقو أحمد نور محمد عبد الله وأنيدا دينيا مدحوينها ومدى الصوماليات حسن الشيخ محمود وحان كلا تلينيا مركا ugu horeysa dalka asaga madaxweyne looga dhigay meel adduunyada ka mid ah oo madax kale intay ka timaado ama dawlad kale ka yimaadaan danaha ummadda Soomaaliyeed iyo dalal kale kala dhex gelaya ma arki karo waayo dalka maamulkiisa adiga ayaa hoggaankii u haya marka dawlad kale intay soo boodo arrin Soomaaliya gudaheeda ka jirta inay gacanta la gasho waa khalad. taas markaan halkaa uga baxo markaan aado waxaan sheegayaa jaalle madaxweyne ummadda rag iyo dumar waa soo jeeda dadku waxbay garanayaan dareen bay leeyihiin bal iswarso adiga ficilada aad suubinayso horena aad u suubisay haddeerna aad u suubisay adigu adeegaa tahay qof shaqaynayaa tahay shaqaa laguu dhiibay war dalka hoggaami baa lagu yidhi barnaamij cad inaad la timaaddo oo ummadda dan u ah adiga mushaarkaaga keliyaad leedahay wax kale ma ad lihid ma aha mashaariic iyo barnaamijyo iyo dadka inaad adigu dhulka inaad ka jeexjeexato waa qalad sharcina ma aha waxa weeye dhulka ummadda ha xaraashin midda kale ummaddu waxa ay leedahay dad kale yayse ku tigrifalin midda kale ummadda Soomaaliyeed saa uma fahmayso lacag xoog leh inaad aruursataad rabtaa hadhowna doorasho khasab ah sandulle ah kadeed ah wareer ah ceel dheer loo qodo inaad hadhowna madaxweynenimo aad ku soo baxdo waa bil Ramadaan been ma sheegayo waa aragtida markaan dhadhaysaday markaan rogrogay markaan ku fiiriyey markaan arkay wejigaaga siduu ahaa ayaantii horo maxamed cabdullaahi farmaajo xilka uu ka helay wejigaagu suu noqday dhimbilihii ka kacay iyo adoo ku qayliyey warqabya ninkeeda dhammaystira qabyadii aad sheegaysa haddaad rabtaa marka inaad dhammaystirto waa lagu fahmayaa gabdhaha Soomaaliyeed guda iyo dibad waa ay ku fahmayaan ragga Soomaaliyeedna nin walba oo ilaahay caqli iyo basar iyo maskax iyo dareen u yeelay waa uu ku fahmayaa ka joogso haddii kale sidaasaa bannaanka lagu soo dhigayaa maalin kasta dadka yagana nooba kala sokeeyaan kulli waa Soomaali oo dhan meel kastaba ha joogeen dhulka Soomaaliyeed waa dhul Soomaaliyeed waa in cadaalad wuxuu ay ku socdaan madaxweynaha noqday jeebkan ku haystaa saan rabaan iska yeelayaa saa waaye adiga ma nacnacaad gashatay jeebka oo marba xabad la soo haysood dhuuqaysaa ummadda Soomaaliyeed dhulkana ilaahay baa iska leh dadkana ilaahay baa iska leh ummadda Soomaaliyeed baa dhulku u dhexeeyaa marka adigu saa rabto ha yeelin qodobka saddexaad waxaan u sheegayaa
wax ummadda Soomaaliyeed ay leedahay hadday reer NFD tahay hadday Soomaali galbeed tahay hadday Jabuuti tahay hadday waqooyi tahay hadday koonfur tahay waxay ummadda Soomaaliyeed gudo iyo dibad meel kastaba ha joogeen ay leeyihiin isticmaar dalka soo galay baa leh asagaa noo kala qaybiyay asagaa sida tan yeelay asagaa annaga nooga tegay asaga ilaahay caqliha inii yeelo ilaahay lahaanshaha adduunyada uu leeyahay allah ini tuso tasarrufkii siduu raba uu u maamulayay adduunyada ilaahay ilaa asagaa abuurtaye ayaad nin gumaysta ah oo soo carraabay oo carruurtiisa iyo hawaankooda raadinayay wax shacabkiisa wax u raadinayay markii ilaahay naga saaray oo halgan dheer la galay haddeer annaga aad waranka nagu liiliijinayso 21 sano malaayiin dadii nooga dhinteen warankii gumaysiga ayaad hadda nagu liiliijinaysaa oo dhulkii ilaahay imakaniyey ingiriis aad siisay waxa weeye nin meel kale u daloosho ayaa tahay dadkuna kuma fahmin muuse biixi waxa uu doonayaa reer isxaaq oo dhan iyo waxa la halmaalaa waxba inaysan ka soo harin xataa reer Jabuuti inay baaba'aan dariiqeedii wuu ku socdaa waayo libaaxa waxaa la yidhi ninka galladayna wuu garan ninka ganayna wuu garan SSC oo reer khaatuma ah oo daraawiish ah ninkii dhibaato u geystayna waa yaqaanaan ninkii wanaag u geystayna waa yaqaanaan waxa weeye meeshaan cayaar iyo kaftan iyo laalaab iyo malaha waxa weeye calanka buluuga ah midnimada ummadda Soomaaliyeed qarannimadeeda jiritaankeeda wax wada qabsigeeda waa midaan hore u goynay hore u suubinay naftayada u bixinay ugu yaraan 150 200 oo kun oo qof oo rag iyo dumar ay ku wada leedeen oo ku baaba'een gabadhii wax garanaysa ninkii wax garanaya dadkii ilaahay dareen siiyey dadkii ilaahay wanaag la rabo dadkii aaminsan ilaahay waxay raacayaan reer khaatumo waayo waxay ku fadhiyaan wa'tasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafarraquu wa'tasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafarraquu war xariga ilaahay qabsada hana kala tegteginina SNM amxaaray soo raacday markaasay ummadda dowladdii oo waarso ay isugu tagtay ciidamadii markay soo baxeen ayay dowladdii dagaal ku soo qaaday ayadaaba shaatigii amxaarada soo gashatay SNMta lagu sheegaya waa saas dowladdu waxay uga hor timid ma iyadoo dadka laynaysa dadka baabiinaysa dowladdu dhaafi lahayd maxay ka duwantay waaba ka sii darantahay markaa amxaarkii kulligiinna markhaati waxay iga tihiin walaalahayaga Itoobiya inay dhahayeen Soomaaliyana dadkii dumarkii carruurtii ilmihii yaryarka ahaa oo naftu ka dhacaysay maraakiibta ka soo deji waayey dhaqamadii diinta islaamka oo dhan xumaynayayna ay lugaha gashadeen si ay aqoonsi keliya u helaan waana dad adduunye dadkaanu dad aakhira ma aha hoggaanka hayaa shacabka maya shacabku mar walbaba 100% shacabku waa wanaagsan yahay laakiin waxa weeye waa hoggaanka
ayaa waddada ka dhuminaya waxaa weeye oo ku soo gabagabaynayaa dhulka iyaga ilaahay la siiyey soomaaliya qolo walbaba horay saan u sheegnay meesha ay degan tahay ha loo dhaafo qolo xataa uma soo guuri kadho ma aadi kadho waxaan ka ahayn qaabkii soomaalinimada qaabkii walaalnimada qaabkii naxariista isguursiga isla degidda isla daaqidda ceelka wada aroorka cayaarta wada cayaarka soomaaliya ilaahay baaba isugu talagalay sidaasay isugu xiran tahay wax la isu diriro wax la isu qabsado ma jirto hadalkayga taa waxaan ku gebagabeeyey oo qodobkaa ku dhammaynayaa midnimada ummadda soomaaliyeedna yeela cawdi billaysta dadku waa dadkiinnii dhulkana ilaahay baa iskale ninkaan la yidhaahdo muuse bixina dad badan baa hadda kacay oo ka hor yimid waa saxsan tihiin war ninkii wax gartayow dadka gabdhaha dhalay wiilasha gabdhaha dhalay soo diiday ku soo rafaaday cihida ku hayay 9 bilood sidii masego la xabtoobsanayo yaa dab lagu shubin inta la xabtoobsado carruurta kow waa kaa dhimay oo kugu dhimay waa dadkayagii waanan ogahay in la isdhaldhalay dhexda la ysaga jiro war iska qabta waryaaya warya iska qabta haye doorashada kuma u joogo oo doorasho lacag lagu raadinayo oo 2 sanaad sii joogaysaa ayaa Saleebaan Gaal u waxeeyey ma ucid baa u waxeeyey ma wadani baa u waxeeyey ma ummadda reer Isxaaq baa u waxaysay waa maya waa asaga dagaalkii hore dhibaatadii ka soo gaadhay asagoo ka leexanayuna dagaal wuxuu ku soo qaaday SSC khaatumo si fiican baanad yeesheen ka baxa kulligiin ka baxa sida garaad jaamac garaad cali u sheegay waaye ninkii asagu bannaanka soo dhiga asagay u taallaa laxwaluba shilalkay dhigtaa lagu qalaa hase yeeshee duntiinna wanaajiya dareenkiinna wanaajiya duxdiinna wanaajiya wax markaad cabbaysaan weligiin iyo allihiin saafida iyo miidda ka cabba saafida iyo miidda markii aad ka cabtaan caafimaadkiinna ayaa saa'idaya caqli yeesha garasho yeesha dareen yeesha qof bini aadan ahi yuusan noloshiinna baxar gelinin haddana ehlunaar baad kulligii wada tihiin waayo qur-aankii baad ka leexateen guri aada lahayn baad ku dagaalamaysaa wayfo sababtu waa maxay waa lilkibriyaa kibir weeye arroganis marka kibirku meeshu ku dhiga hala arko waa ogaan doontaa meesha uu ku dhigo hala arko nimanku waa daraawiish SSC waa daraawiish ilaahay baa weyne gaalkii weynaa baa ku wareersaday taas halkaasaan uga baxay waxaan soo gelayaa ciidamada qalabka sida oo odowaa madaxda u yahay mar walbaba ciidamada meesha ay ka soo jeedaan guud ahaan waa Soomaali gaar ahaanna nin walba meel buu ka dhashay Soomaalidu waxay tiraahdaa jiirkiisa la hayste jidiinka kama qoslo waad ogtahay waa la socotaa waa fahansan tahay ciidamo galay oo al-shabaab la dagaalamay intay dharkii beddesheen la dagaalamay oo saa yeelay waxaan ku leeyahay ninka hadduusan tegin yemen hadduusan tegin jabaan hadduusan tegin maraykan hadduusan tegin kenya hadduusan tegin uganda oo uusan ka soo dagaalamin soomaaliya gudaheeda qofku waa
dagaalami karaa asagoo fiirsanayo hooyadii walaashii eedadii dadkiisii jiirna jiirkii ma culaysiye soo jiida jeeyaha weeye hooyadayoo hoogayoo ba'yay leh xabad ha u qaadin ha soo dagaalamin warsee waaye mideeda kalese qofkaad la hadlaysaa ma aha hal qof keliya ma aha waa SSC waa dad fara badan Jubbaland markaad ka hadasho waa dad fara badan galmudug markaad ka hadasho waa dad fara badan hadalkaasu marka inuu kaa soo baxo ma ahayn absolutely inaad tiraahdo wax xuquuqa ma leh saa waaye adiga odawaa ninka kula hadlaya waa Axmed Nuur Maxamed Cabdille maandeeq koor baa ku xiran waana ninkii 24 saac inaad kor caado inaad hore u socoto inaad jirto xasan sheekh maxamed madaxweynaha ku tirtirsiinayay oo lahaa ninkaas waa nin fiican waa markii ugu horreysay oo haruubka caanaha aad wadatay aad iska daadisay waa daadisay yayna ku gelin yayna kugu abuurmin yaysa ku saaqin yaan lagugu dhalinin cudur horay cudur kuguma jirin ka fogow cudur oo uu wado Ismaaciil Cumar Geelle waana wixii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khayaanooyin laalaab been qorismaris waxaas waa waxa lagu riday waana la isugu wada tegey sidii waagu ra'iisul wasaaraha ahaana sidaas camal la isugu wada tegey asagana hadeer la isugu wada tegey kulli waxa soo galay oo dhanna inta doorashada iyo nidaamkeedaasi ay socotay kulli waa khaa'inu wadanin waa hadduu yahay ra'iisul wasaarihii joogay Roble oo doorashada loo xil saaray waa khaa'in weynaaday waa bil Ramadaan waa soomanahay aadan madoobe waa sidoo kale waa khaa'in weeye shalayna amar baa siiyey gabadha gurigeeda uga baxbay dhaba ku taalla ood haysatood xaaraanta ku haysato si gabadha saasaa kuu daba socdaa gabar qaylinaysa ma arki karo oo Soomaaliyeed nin qaylin karo oo xaqdarro lagu suubinayana annaga ma arki karno rag iyo dumar kulligayo waa ka wada qaylinaynaa wax allaale waxa hadda الجزيرة كتشير جري وقتي محمد عبد الله فرماتش حلكا هي وريركي يا دباتدي يا قرنكي يا بنتي يا قبلها يجي صوماليات اي قيمها لها اي درجة لها اي علمك صوبرتي مد دينية يا مد مادية صوبرتي لدي لي وهديت هاي إكران يا هديت هاي نمعو هورينا loo dilay waqtigii hore teerabkii hore ee uu haystay xasan sheekh xukunka allah u naxariistay saada cali warsame iyo hodanaa leeyo oo Kismaayo lagu dilay waadna hal guraysaan waadna hal wadaan waadna hal waxaynaysaan hase yeeshee ogaada la socda dalka ummadda ayaa iska leh ummadda oo dhanna haddii ilaahay yidhaahdo waxay raacayaan waxa badbaadinaya hasha maandeeqa waxa badbaadinaya
hasha maandeeqa macnaha maandeeq koorbaa ku xiran markaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo dhan rag iyo dumar dadka waxgaradka ah ayaa hashaas fiirsanaysa waayo waa jiritaankoodii waayo waa sharaftoodii waayo qiimay yeelanayaan laakiin mar haddaadan dowlad lahayn warqadda bay ishu wadataa tahay hadalkii waxaan ku soo xiray reer khaatumo 90% waa guulaysateen 10 baa inii dhiman 10 kale ilaahay baa inii dhammaystiraaya wax laydinka qaadayahay ma jiraan ilaahay awoodihiisu waa fara badan yihiin garaadadana guul allaha siiyo garaadada sharaftooda allaha dhowro garaadada aqoontooda wacan allaha sii ballaariyo waxa weeye rag iyo dumar saa ula socotaan garaadada oo dhan aad u wada maqlaysaan waxa weeye meeshuu ku badan yahay aqbalka iyo isu dhega nuglaantu guul kastaa lagu gaarayaa dagaalka gala marka la yidhaahdo wax ku dhaha gala waayo waa jannadii oo aad gelaysaan waayo hooyada iyo carruurta dayuusnimo ayaad ka diriraysaa ha ogolaanina marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu